وحجر علي بن أبي طالب أي مال نمن أي مادين كتبت بدكود waxay yiraahdeen 15 bay ahaayeen waxay nimankaasi doonayeen cali inay ka ogaadaan cilmigiisu intuu leeyahay 15 kaanin 30 nin waa leeyahay 15 ninba waxay isku waafaqeen cali aynu su'aal qura weydiino isna jawaabta hayno kala leexleexiyo waxay yiraahdeen adduunyada iyo cilmiga bal nooga kala waran mid ka fiican kii koobaad baa oranaya adduunyada iyo cilmiga ayaa fiican de wuxuu ku yiri cilmiga fiican lima budayir muxuu cilmigu ku fiicnaaday cali wuxuu ugu jawaabay kii koobaad waxad ilaalinaysid iyo wax ku ilaalin iyo ma fiican keeba fiican waxad adigu ilaalinaysid haddaad ka sii jeedsatid ee ka lumaya iyo waxa adigaba ku ilaalinaya adigaaga nool ee aqliga leh ku ilaalinaya waad khaldantay halka ka bayd طريقaasi waa kii naarta kaasi waa kii khaladka kan mar aduu ku ilaalinaya cilmigu adduunyadana ala ilaalinaya muxuu ugu jawaabay kolkii su'aasha la weydiiyay de waxa adigu ilaalinaya fiican buu yiri de cilmiga weeyaan buu yiri waxa adiga ku ilaalinaya waa halkan uu ishaaraya talmiix bay balaaqadu u yaqaaneen talmiix Ali ibn Abi Talib ninkii labaad baa yimid oo wuxuu yiri war bal ka waran buu yiri cilmiga iyo adduunyada mid ka fiican caliyow de cilmiga fiican buu yiri lima buu kii labaadna yiri ali wuxuu ugu jawaabay wax markaad bixisid bata iyo wax markaad bixisid yaraada iyo ma fiican wax markaad bixisid bata soo maaha alla markaad bixiso si badanaya de waa cilmiga buu yiri bal imika kitaabka ugu yar risaalada ay hadaad aqridid waad sii fahmaysaa wax imika aan ku muuqanin ayaa kaaga sii baxaya marba marka ka dambaysa waxaan ognahay adoon quraanka xaafid ku ahayn hadaad tidhaahdid macallin baan noqonaya quraanka u dhiga على الأقل maxaa kaaga xasilaya de quraankiina xiftidaa kaaga xasilaya adigiiba ardaya dhinac hadii laga eego cilmigan ad dhigaysid hay isku fahmiinuun macallinuun ina tahay mutacallim baa tahay waxba ku kordhiya maalin kasta waxba ku sii baxaya waxba ku sii ifaya wadareemaysa kii saddexaad baa yimid oo wuxuu yiri caliyow bal ka waran cilmiga adduunyada ee cilmiga weeyaan buu cali ku yiri wuxuu yiri muxuu cilmigu ku fiicnaaday wuxuu yiri wax dadku kugu jeclaado iyo wax dadku kugu naco keeba fiican buu yiri wax dadku kugu jeclaanaya soo ma ahayn waa ki imikun sheekhu inna salaha ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta dadka kugu jeclaanaya weeyaan muta'an maxay dadku ku adeecayaan hadii ay dadku ku jeclayn dadka kugu jeclaanaya weey